Soomaaliya saaka ma nooli kaale midkan jiita ninka asaga ahaa odayga cajuuska ma aragteen oo magaciisa jiheeya la dhahayo baa saaka dhulka iga taagay ma nooli wuxuu ii reebta male inkastoo hadalkiisa iyo eray kastoo afkiisa ka soo baxay haduu gabar caayayaba ay tahay shubo one way horta sheekadiiso dhanba idin siinaya saake wiil ba aro iska jiifo wuxuu ii soo diray text wuxuu yiri abaayo Caaisha isma naqaano laakiin waxa ahay wiil oo maxaa la dhahayay odayga jiheeya la dhahayo dhalinyaro guri la deganeed baan ahay saddex baan ahayn asaga ugu afar ahaa marka waxaan ahaa saddexdaas wiil mid ka mid ah magaciisa ma sheegay tiktagiisana ma soo dhigay wuxuu yiri Caasho horta waa lagu soo caayay ma ogeena aragti in kale ma arkinaan ku dhah jiheeya dhulka ka taagu yiri haye ninkan odaygan cajuuska ah wuxuu yiri waa isla deganeen guri isla deganeen waxa ahayn saddex wiil oo dhalinyaro iyo asaga afarteenaba taraaglayaalan uu yiri wuxuu yiri odaygan hadeer saddexdeenaba lama deganin sababta uu la deganeen waxa waa uu yiri wiil horta wuxuu iga codsaday inaan lambarkayga siiwaan siiyo because ninka dhulku ka taagay markuu idhahay newskiisa dhanna waan ku wada adoon magacayga sheegaynin inaa sirtiisa banaanka soo dhigtid odaygan xarash ku haay wuxuu yahay dhan baan ku siinay yiri marka waan siiyay lambarkayga WhatsApp ku waa meeshan ka hadlayno caadi telefoon oo sheekaysanona wuxuu yiri saddex baan ahayn u dhahay ninkaan la deganeen dhalinyaro haye wuxuu yiri ninkan odaygan cajuuska wuxuu yiri waxaan wadanahay anaga dhan taraaglayaal okay hadalka idin boobsiye taraaglayaal wadanahay guriga waa laga wada tagaa anaga dhan taraageena ana ninkaan toole weekendiga most of the time anaga marka off nahay off ma qaato ila amarkiis waa ka wada shakine marka anaga wadada saarana lu kaligiis off qaata una weydiya marka dhahana anaga weekendigan off nahay asaga wadadu saarey marka anaga wadada saarana asagana gurigu jooga wuxuu yiri ninka horta salaad ma tukado odaygan cajuuska ah wayna ka muuqatay wajigiisa waa dhukul wajigiisa nuurkii dhan baa ka tagay horta waa wada aragteen aniga been kama sheeganay halkaan baa sawirkiisa idin soo saaray ninkan wuxuu yiri qaansiirka maxal cuntada qaansiirka leh intuu soo gato oo dhowr jeer inta u sheegno cuntadan qaansiir beleed ba asagoo hadana stiil cunaya aragnaa qaansiirkaas uu cunaa salaad ma tukadu naagaha madowga oo $20 inta la siila la seexdo buu guriga ku soo qarsan jiru ilaa amarkiis mar anaga iska socono leen guriga ugu imaano dhalooyin beer kan uu caba istaagu ka caba illa ii Soomaaliya markuu joogo ninkan beer cabaayal sheekadiisa kale uu ii sheegay ninkan horta inuu salaad tukani wajigiisa ku taala oo afkiisa ilkihiisa huuradiyo caadi ku taalo huuradiyo sideeda ilaahay maxamed sameeyaan ku dhaarto huuradiyo sideeda waa jaalo afka iska daayay bishimaha geeskaas oo dhan ma aragtay waa daxaleysteen afkiisa dhabbaaba daxaleystayba wajigiisa nuurka ka tagay 60 sano asagoo jiro buu 90 wuxuu u soo fadhiyaa inuu hablaha caayo oo maxaa la dhahay shubo one way horta waa hala qabsigiisaba saqiir wala kabiira ducaynaayo shubo one way aniga marka wuxuu igu caayay naag ajnabi guursaday oo wuxuu yiri holo falaf oo one way laga dhigay okay aniga horta aqoonsho ima lahan aniga ay dhalay ajnabiga uu sheegayo baan ka dhashay aniga weedi am xaara waa inta taqaano okay ajnabi kama faana waan ku faana okay wuxuu yiri naag horta ajnabi soo nacay oo banaanka ku soo tuuray ayadii ilmaheedaba oo kala janjaan wadato nin adaa doonto yiri adaaba ka qaldanba okay ajnabi si sharaf leh buu ii guursaday inta TikTok-geyga iyo YouTube-keyga igala socoto taashkeyga anoo jiiday aroos sharaf leh oo reerkeyga la iga soo doontay baa la ii dhigay soo xagaratama ilaa TikTok-geyga ku jirta adaa si raacday soo xagaratama nin gaal soo bahalkiista asagoo ashaadada qaadanaya TikTok-geyga ku jirta soo xagaratama ajnabiga kama faanay waan ku faana teeda kale intaasoo qalqi oo maxaa la dhahay gabdho oo Soomaaliyeed oo ajnabi guursatay bal fiiri hal mid oo nolosha ka dhacda bal ii keen
hal mid oo nolosha ka dhacday inay ka wada qurxayeen xaliimooyinka faarax qabo ee ka wada qurxayeen ka wada nolol sareeyaan in the blue baa laga wada dhalay soo xagarta ma ilmo qurux badan way ka dhalay gaarigaas isjiidaay alaabtan aan ku socdo ya GMC kana ku socda waa alaabta oo maxaa la dhahay Trump markuu uu aadayo meetingka uu ku socdo waxa la igu keenay hadiyad wiilkayga koobaad marka uu dhalay ajaanibka soo xagarta ma faarax du faa'iido leh saddex baa u soo dhalay waa soo arkay soo xagarta ma inuu nolosha iga soo riday okay saddexdaas ay sheegay sidoo kale jaanjaanka faarax baa dhalay ka waran hal faarax baa dhalay ka waran ya kanaaba si sharaf leh reerkayga iga soo doontay oo aroos sii dhigay oo taash ii galiyay oo nolol isiiyay taageertama gabdho badan oo Soomaaliyeed oo ajnabi guursaday Soomaali ku guursanay male way u guursadeen Soomaali okay laakiin aniga ajnabiga waan ku faanaa kama faano hadeer aan kula hadlaayo xabad shaqada joogo oo ilaahan kugu dhaartay gacanta ma lagu sameeyaa isdheeysid nabi Yuusuf ak bahadar jacayl aan jeclahay wali uma sheeganin marka u sheegto ku soo taageerayna TikTok jiheye sheekadaada kalena waa maqlay inay gabar Soomaaliyeed ka carartay ilaa ninku wuxuu soo sagaashanka gabdhaha Soomaalida u saaran yahay ninka waxa la yiri geedka balaqa jabta ka gash markaasay ka carartay geedkii oo malax ka da'ay markay aragtay marka hore wax meesha ku muusan hayno odaygan waa la qalaal yiri oo meesha xitaa waxba laga qalqalay waxba meesha kuma haayo oo xaliimo iskuma ligooyin kara xaliimo way banaankaas u soo fadhiisanay birq waaye dhahay soo ma ogid marka 90 halkaas intuu fadhiisto naaga madowga $20 kula tunto khamriga beerka cabo ma soomo dhay wallahi wiilka inuu been idin sheegay ninka ma soomo inuu kufama ogiye ma sujuudo u dhahay hadalka soo dhiga waaya inuu kufama ogiye ma sujuudo wayna ka muuqataa wajigiisa daaninkaas fiirisid mugdiga iyo maxaa la dhahayay nuurka dhan waa ka maqaya oday 60 sano jiro oo 90 ka naag leh maxaa la dhahayay ugu dhagan gorgorada I'm sorry for you ajnabiga sheegaysid ooyadayba ajnabi waa soo wata hadana mid kale ya oo soo taageerayna animi gabdhaha Soomaalida oo marka dhulku ku jiidido aysido jiljilicsamay saaxiibani I'm not like that ajnabi waa ku faana ani ya ajnabi kala soo wata warabul kacab faarax ii baahanada had banaankan soo dhig inta faarax oo Mareykanka ila joogto oo i rabto madaxa qabsanaysan laakiin I don't want none of them marabi okay ajnabi kala soo wata cuz ani ajnabi ay dhaleen and I'm always ajnabigaasan ka dambeeya soo xagarta ma gabdhaha ajnabiga qabana TikTok ayaga ugu caansanbo ya noloshooda iyo si u baalkeysay xaliimo dhan saas ay u daawadaan xaliimooyinka dhan ya muraayad camal loo wada daawada ya ilmaha dhaleen iyo ayaga iyo soo egiin iyo nolosha haystaan iyo ya waxa soo kala rabnaa ya faarax noloshu kaaridaa 90 ku baadilay ya faarax raw what's faarax ya nan laakiin nasiib daro aabahay baa faarax okay nasiib daro aabahay baa faarax noqday marka kuma si dheeraanayo asaga dartiis ban uga siinaa faarax laakiinse next time marka rabtid inay soo cayst ilkaasna soo rumay historygeygana soo ogow waxaan ka dhashay meesha ka imaadana soo ogow ilada ku dhashay was